madaxweynaha Burkina Faso ninkaas da'da yar jacmacaan ayuu ku dhijiyay qoladii qamiiska dheereed ee Sacuudiyaanka ahay sheekadaas xiisa leedahay laakiin marka hore muuqaalkan yar ila Saudi Arabia would offer to build 200 mosques in Burkina Faso. And he said, you know what? Actually, the people of Burkina Faso can pray anywhere. What he said was that if people of Gaza can pray, even people of Burkina Faso can pray anywhere, because what people of Burkina Faso need most is schools, hospitals, and homes. So he said, basically, no, but no thank you. Now, how Sacuudiga wuxuu leeyahay 200 masaajid ayaa u dhisayna reer Burkina Faso hambalyo bas hal alalaas wuxuu u jawaabay taqaanaa Sacuudiga wuxuu islaa mashruucan uu socon doonaa ninkan da'da yar ee dhibaato far badan soo maray dalkiisa iyo qaaradda Afrika madaxda tuugada ah wixii oo dhan ka dharagsan Sacuudiga wuxuu yiri nimayahow 200 masaajid hanoo dhisina reer Burkina Faso dadka muslimiinta ah meel ay ku dugtaan ma aysan waayin luuqyada jidadka wuxuu kala tusaale fiican u soo qaatay Gaza dadka reer Gazaba ayagoo guryahooda la burburiyay ee laamiyada xitaa meel maanta cag la saaray aysan jirin wili salaadooda kama tagaan oo seetahay u dugtaan marka reer Burkina Faso meel ay ku dugtaan ma waayin saddex shay ay reer Burkina Faso rabaan waa iskuulo waa xarumo caafimaad isbitaalo iyo guryo ay degaan ay seexdaan jooga soo dhigtaan oo ay ku nabad galaan iyo macallin jiray iyo iskuulo ciyaalkoodii aadaan wax ku bartaan iyo waxay u baahan yihiin isbitaalo dadkan xanuunka u tagaan ee isku daaweeyaan walaalow adiga ma qaldan yahay adiga marka jawaab soo bixi commentiga soo gal madaxweynaha haduu qaldan yahay uu diiday 200 masaajid ma xitaa Sacuudiga duu dhihi lahay kunta masaajid adin dhisana konton iskuul waa idin dhisana waxba ahaan lahayd 200 masaajid oo qarashkooda uu ku baxaayo 500 milyan oo dollar ما حتى كستوي بقول لكم مليون حتى ما يقدر يغني إسبيتال وعبرة شيء ولا عرضان مشروع وعصدين هوتين إيه نقدر